جمهوريات مدالنين xaflad lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha xisbiga Soomaalida cusub mudane Cabdisalaan Yuusuf Guuleed ayaa lagu qabtay waqooyiga magaalada London iyadoo gudoomiyaha xisbigu uu halkaasi warbixin ku siiyay dadkii ka soo qayb galay isagoo uga warbixinayay xisbiga iyo waliba xaaladda uu haatan dalku ku jiro haddii aan dhulkaygu geynabada ka dhigin haddii aan dhulkaygu gudahaan dib ku dhisin haddii aan dhulkaygu gobonimada soo celin Soomaali kama dhalan gudoomiye Cabdisalaan ayaa heestaasi ku bilaabay khudbadiisa isagoo markaasina ka waramay xisbiga iyo waliba baahida ay haatan Soomaalida u qabto in loo istaago dalka Soomaaliya haddii aanan dhaxantiyo milicdaba u dheeraan Soomaali kama dhalan sida xisbigan magaciisa ka muuqata waa xisbi isbedel doona oo aaminsanaa maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay inuu hormuud u yahay waxaan kugu yeernay inaad nala qaadataan fikirka ku dhisan in aan la taageerin qof dilaya waxaan ka doonaynaa inaan taageerin qof dilaya inaan taageerin qof doonaya inuu qof Soomaaliya oo xaq darro ku dilo inaan taageerin midabkooda doona ha lahaadee qof doonaya inuu xoog dad ku muquuniyo waxaan ka doonaynaa inaan taageerin qof Soomaaliya dib u soo geystay inaan taageerin qof Soomaaliya duleystay inaan taageerin qof Soomaaliya dulmay inaan qayb ka noqonin midabkooda raba ha lahaadee wax dadkeenni sidaan u galay inaan taageerin qof hooyadeen wiil aan dhigay qof asay u xiray walaasheen qof agoon ka dhigay caruurteeni inaan qayb ka noqonin midabkay rabaan hal haadeene bismillaahir rahmaanir rahiim horta dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa oo barnaamijkan daawanaya inaan halka ka salaamo dadka ama jooga qurbaha ama dadka Soomaaliya jooga 20 sano dadka Soomaalida ay dhibaato soo mareen kadib dadka Soomaalida waxaad moodaa maanta inay qoosteen oo ay ka qoosteen in wadankii dad Soomaaliya ay burburiyeen ولنا dadka qaarkiis ay gacanta ugu jirto marka waxaan maanta halkan ku arkay ninkan walaalkeen soo bandhigay runtii illa xaqir ma haboon oo adduunku xabaabiyay waxa qaraada wax wanaagsan ay soo bandhigay runtiina waan maaragtay congratulations alle asaga dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan qaadanaynaa walaalkeen carabkiisa wanaagsan waxa uu sheegay iyo wixii wanaagsan halkan ka arkay runtii aanan ku arkin xataa inaysan dawladda hadda jirta ama kuwii koreeyay أنا سمين مركب واحد كله bravery وكله وبريري ونفتيس هذا كيسين وقريها بوقنا يدك ما ركت ما تصدق مش جوجن عروض سومال الفريسين هاي دتكي دلك أسوه الجمي وما ركت إلا وإنه أتجي وحتى وحوجي ونانت وحكوت سيس encouragement أنا لفتي ما أنت ما ركت وحبي تستي دتك سومال أنت هذا بدن وين حضلان سومال هذا واحد ترى حضل هان مبحشوا سومال ما أنتم مبعنا نين العكس لما لها فليه أما نين ما لها كهلا وحوب أنت action and this is part of action سعديو كورن حزبيان سومال ذا عصب يحفلتن سوارتها ما شاء الله سئات أو في عن ودعضي ما أنت دتك دن كسوق قيب قلنا وأنا راعسنا هاي وحنا رجينا إنه إلهي كقوليه وكوي هركو كدون إلهي كريم waxyaabaha ku soo jeeday maanta xafladan ama khudbadihii la soo jeedinayay maxaa kamid ah waxa kamid ahay macnaha statiska macnaha phraseska uu isticmaalayay gudoomiyuhu markii aan daawanayna filimka iyo maaragtay face speak ka muuqday markii aan filimka daawanayna calashan waxyaabihii uu soo qabtay uu ka sheekeynayay waxayna ahayd arrin maaragtay aan leenahay ma sha Allah dadka dhan meeshan xafladda joogana maaragtay aad u qeyro galiyay
علنكيga waxaanu عشدي قد دلتا عشرات قرانكي عدلكم وقدر مري إما تنعير المدن علنكيga waxaanu عشدي قد دلتا